السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bishaan aanu ku jirno ee Shacbaan nabiga sallallahu alayhi wasallam soonkeeda aad ayuu u badin jiray. Usaama ayaa weydiiyay sababta ama sirta uu ku jiro oo u badina nabiga sallallahu alayhi wasallam soonkeeda. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay daaka shahrun yaghfulu an-naasu anhu bayna Rajab wa Ramadaan. Waa bil ay dadka moogan yihiin ay ka yihiin qaafil Rajab iyo Ramadaan ee u dhaxayso waana Shacbaan. Ibn Rajab rahimahullah wuxuu leeyahay awqaada dadka qaafil ay ka yihiin ay moogan yihiin acmaal ama khayr la sameeyo way ka fadli badan tahay awqaada kale waxay leedahay miisa waxaa wanaagsan qofka inuu ku dadaalo waqtiyadaas acmaasha waqtiyada hadda aan ku jirno ay dadka qaafil ay ka yihiin sidoo kale nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay waa bil acmaasha la koryeelayo waxaana jeclahay acmaasheeda anuu sooman in loo yani la koryeelo waa fursad qofka waxaa wanaagsan inuu ka faa'iideysto acmaal iyo khayr fara badan